ururka Taliban ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay dhismaha xukuumad ku meel gaar ah oo shareecada islaamka ku maamuli doonta wadanka Afghanistan kadib markii ay dalkaasi la wareegeen bartamaha bishii August ee sanadkan 2021 kadib markii halkaasi ay ka baxeen ciidamadii shisheeye ee uu hogaaminayay Mareykanku afayeenka kooxda Taliban Sabihullah Mujahid oo fiidnimadii caawa shir jaraa'id ku qabtay magaalada caasimadda ah ee Kabul waxa uu cadeeyay in dawladda cusub uu hogaamin doono Maxamed Xasan Akhnud oo loo magacaabay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha dalkaasi halka ku xigeenkiisana loo doortay Abdul Ghani Baradar iyadoo wasiirka amuuraha gudahana laga dhigay Sirajuddin Haqqani oo ah wiil uu dhalay hogaamiyihii aasaasay shabakadda Haqqani Mullah Maxamed Yacquub oo isna ah wiilka uu dhalay aasaasihii ururka Taliban Mullah Umar waxa loo magacaabay inuu noqdo wasiirka difaaca xukuumadda islaamiga ah ee Afghanistan xukuumadani ku meel gaarka ah ee ay soo dhiseen ururka Taliban oo ka kooban 33 xil ayaa isugu jira wasiir ku xigeenno iyo agaasimayaal kala duwan iyadoo xubnaha kale ee la magacaabay ay ka mid yihiin Amir Khan Muttaqi oo noqday wasiirka amuuraha dabadda xukuumadda Taliban Qaridin Hanif oo loo magacaabay wasiirka dhaqaalaha Mawlawi Nuur Maxamed Saadiq ayaa isna noqday wasiirka xashka iyo arrimaha diinta iyadoo wasiirka cadaaladana loo magacaabay Mawlani Abdul Hakim Shari wasiirada kale ee ka mid noqday xukuumadda cusub ee Afghanistan waxa ka mid ah Mullah Nuurullah Nuuri oo loo magacaabay wasiirka xuduudaha iyo amuuraha qabiilooyinka agaasimaha guud ee baanka dhexe Afghanistan waxa laga dhigay Xaaji Maxamed Idriis iyadoo wasaaradaha kale ee la soo dhisay ay ka mid yihiin wasaaradaha dibudejinta reer miyiga iyo horumarinta wasaaradda howlaha guud wasaaradda macdanta iyo shidaalka wasaaradda biyaha iyo tamarta wasaaradda duulista hawada iyo gaadiidka wasaaradda waxbarashada sare wasaaradda isgaarsiinta iyo wasaaradda amuuraha qaxoontiga sida uu sheegay afayeenka ururka Taliban xukuumadani cusub ayaa waxa ay noqon doontaa mid ku meel gaar ah oo si rasmi ah u maamuli doonta howlaha dawliga ah ee dalkaasi Afghanistan waxaanu afayeenka ururka Taliban xusay inaan weli la soo dhammaystirin dhismaha dawladdan balse ay xilal kale oo muhiim ah magacaabi doonaan maalmaha soo socda iyadoo si taxadar leh looga fiirsanayo qaabka loo buuxinayo dhismaha dawladda iyo sidoo kale cidda loo magacaabayo maadaama oo la doonayo inay ka wada dhex muuqdaan dhammaanba qaybaha bulshada ee ku nool waddankaasi Afghanistan Axmed Maxamuud Yuusuf Television Kasab qoonmaal islaam iyo fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya islaam iyo fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir 1 5 eber